بسم الله magacaygu waa Axlaam Axmed Difri halkan waxaan idinkula wadaagayaa 10 qodob oo kaa dhigaya qof naftiisa ka adag noloshiisa hanan kara si wanaagsan u fikiraya waa kuwa marka talooyinkaasi naftayda wax ka bedeli kara koow aragtidaadu ha noqoto mid waaqac aad joogto la jaanqaadaysa labo muuqaaga duleedane sidaan ognahay xilliga caruurnimada dankeena gashid waxa aad ku labisanayso kaliya waxaa ku muhiim ah inaad faraxsan tahay laakiin marxaladan way ka duwan tahay marxaladii hore sidaa darteed muuqaaga duleedane sida naftaada ku kalsoono waxaad ku dadaashaa inaad naftaada ku beerto kalsooni afar baro sida loo doodo in qofku uu dooda u bisan yahay waxyaabaha lagu karto waxaa ka mid ah inuu khayrin inuu cadhoon inta ay dooda socoto naftiisana inuu xakameyn karaa shan shucuurtaada xakamee ha cadhoon hana khayrin lix jidka noloshu marayso adigu taladeeda hay cidnayay kuu ha adigu ismaamul todobo ha ka baqin inaad waajahdo mushkiladaada si xur ah ku waajah mushkiladaada oo aan cabsi ku jirin sideed qoyskaaga daryeelkooda ogow sagaal ha noqon danayste toban cafiskan ogow nacaybka caloolxumada iyo inaad aargoosi orada kana turjumayso dabeecadaha lagu yaqaano shaqsiga bisi sidaa daraaddeed cafiska badi